waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu qabtay kulan ay soo qaban qaabiyeen ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda ogaadeen ee magacooda loo soo gaabiyo OYSU. ururkan oo kamid ah xisbiga ONLF ayaa kulankan waxa ay ku xuseeyeen maalin loogu magac daray maalinta xasuuqa ogaadeen. farxsanahay talabaan aad baan u qiireysnahay maanta runtii waa maalin qiiro maaha maalin farxadeed runtii waa dareemi kartaan dhammaanteen weerkana xirannahay weerka maxaan u xirannahay runtii waa dhibaatadii iyo tacadiyadii loo geysanay shacabkeeni Soomaalida ogaadeenaya ee dhibaatada faraha badan ay muddo laga sheekeynayay ee xaaladda ka duwan soo martay ee halgan badan soo mareen ee laga sheekeynayay ayaan weerka u xirnay maanta bishan ayaa loo isteeyay bishan baa loogu talay in la qabto bishan baa loogu talay laakiinse bil kasta dhibaato kasta way dhacaysay wayna socotay laakiinse tan aan u asteynay waxaan rabnaa inaan xasuusanno waxaan rabnaa markaas inay naga bixin qulubteena inay gasho qof walba inuu aamino qof walba inuu dareemo loo baahan yahay maxad aaminaysaa in dadkan libaateen jiray ka soo garahayo ka hadda dhalanahay dhammaanteen waa inaan dareennaa dareenkii la soo maray shacabkeena markaas hilmaami mayno kana tagi mayno dhibaato shacabkeena la soo maray xasuuqan ayaa dhacay bishii labaad ee sanadii 1994 kaasi oo horaantii bishii labaad ee sanadkaasi ka bilowday magaalada Waradheer ee xarunta gobolka Doolo hase ahaatee dabayaaqadii bishaasi iyo wixii ka dambeeyayba ku faafay guud ahaanba gobolada deegaanka. xasuuqan ayaa waxaa geystay ciidamada Itoobiya iyagoo ku xasuuqay dad rayado oo aad u tiro badan. haddaba ururka ONLF ayaa bisha labaad ee sanad kasta waxa ay u aqoonsadeen amaba ay xusaan maalinta xasuuqa ogaadeen. marka dadkeena inaan ka qaadno weeye heeriyada innagana ay naga muuqato ruux goobnimo doona oo dadka Soomaaliyeed midaynaysa oo dadka Soomaaliyeed muxuu ahaayay xaqooda soo dhicinaysa oo difaacaysa horseedku hadduu cabsado dadku miyay dhiiranayaan dawladdeena fulinimada iska jirta dawladda kililkuna intay soo cabsato isku soo daynaysa muxuu ahaa shacabkeena ummadii intay wada dardareen xukuumadda Itoobiya dhinaca kale looga dhaxbaxay innagana gabada in baa leeyahay xaq anaga hana siiso dawladda Itoobiya ha ictiraaftay inay xasuuqday ha bixiso magdhow ha bixiso taalooyin waaweyn ha loo sameeyo xasuuqa ha qirato ana ka raali geliso dadkii lagu sameeyay midda labaad dadka Soomaalida maanta midnimo laga rabaa haddaan shalayto qori baan isku xoreynaa lahayn maanta miyaanaan cod iyo qalin isku xoreyn karin annaga haddaan olofna xabadda joojinaya haddana codkiina in isku xoreyn waayaan waana laga gadan bay dhaheen muxuu ahaa codadka la gadan xaggana la samayn maanta dadku doorasho xor ah dhacaysa dadka Soomaaliyeed inay muxuu ahaa midoobaan oo ay ONLF taageeraan oo dawlad u qalanta ay dhisaan oo ay xaqooda soo dhiciso oo ay dhulkooda soo dhiciso oo ay noloshooda kor u dhista hoos jirta oo ay ummadaha kale la soo sinmaan dawladda Itoobiya waxa waajib ka inay magdhow dhaqaale siiso oo dawladda kilka dhaqaale badan la siiyo oo horumarin la siiyo maadaama dhaqaalahanaga dawladda dhexe la diri jirto. qaar ka mid ah dhalinyaradii xuskani soo qaban qaabiyay oo aanu mikrofoonka la dhaxmaray ayaa ka hadlay macnaha ay maalintani leedahay iyo sida uu dareenkoodu yahay. عبدالعدان علي أنا قدوميها قبل كفافن فرع OCU oo loo doortay dhawaan insha Allah dareenkayga aad buu ka xasan yahay maanta shucuur saxiix aad buu u murugaysan yahay waxaan karaa waa murugo waayo maadaama 1994 waqtigii weerarka cad lagu soo qaaday ee shacabka ogaadeenaya iyo jabhadda marka uu Sheekh Ibrahim Cabdalla uu ka ahaa gudoomiyaha shacabka oo si fiican isu difaacay inaan maanta waxaan diyaar u nahay aan tusno ummadda Soomaalida ogaadeenaya inay taariikh leeyihiin geesinimaduna waa mid astaan inoo aha oo calan waxaan casan maxaan dhahay maran casan madaxa ku qabno ama maxaan dhahay maanta dhan shucuurteena ka muuqatay ay ka mid ahayd inaan maxaan dhahay geesinimadeena inaan wax kasta u dul qaadan karno u soo adkaysanay 35 sano maxaan dhahay halgan socday oo maxaan dhahay lahaa xabad dhinacu dooni walaalka ku qaniinayay haddana waxaan aaminsanahay inaan Soomaalihan dhinac ka soo jeedno aad iyo aadna waxaan u xusaynaa maxaan dhahay 22 Febraayo billahi tawfiiq maanta waa maalintii xasuuqa ogaadeenaya runtii shucuurtanada iyo waxa weeye sidaan u xusuusanayna ama aan u dareemayno murugta iyo ceelka gumaysigu dadkeena baday lama qiyaasi karo waa maalintii xasuuqa ogaadeen masaaka dhay weeyaan dadweynaha halkan shirka ka soo qayb galay dhammaantoodna waxay isugu soo baxeen sidii ay waxa weeye ugu ducayn lahaayeen taariikhdoodii iyo dadkoodii la gumaadayna ay u xusuusan lahaayeen isla markaana ay cashir iyo taariikh ugu noqon lahayd una fahmi lahaayeen
ummadan la gumaadin oo aan la dhibaataynin inaynan macnaha gumeysiga ka baxaynin xuskan oo noqonaya kii ugu horeeyay ee lagu qabto gudaha deegaanka tan iyo intii uu ururku ku soo laabtay deegaanka ayaa laga xusay inta badan gobolada deegaanka